سلام يا رشكا دمان صومالي وسلام يا وحان ليا رمضان مبارك دمان bulshooyinka Soomaaliyeed meel kasta ay ku sugan tahay markaan ku soo noqdo su'aashaada waa dhab dalkeena horumar badan oo ka gaaray dhinaca arrimaha dibadda hadday noqon lahayd doorashooyinkii oo aan muddo aan ku taamayn in waddankeena mar un ay madaxda ku dhawaaqday in doorasho dalka la aado la sinaado guulaha la soo hoyay dalka dib loo xoreynayo aad baan u taageersannahay dhammaan bulshada isku duuban dhalinyarta muxuu ahaa Scandinavian-ka iyo UK dhammaan anagoo ishaysano waxaan taageero waxaa waaye lixaad la aan u haynaa bulshada Soomaaliyeed hoggaanka u yahay madaxweynaha dhammaan iyo muxuu ahaay hay-adaha inaan ka taageerno wixii khibrad ah wixii muxuu ahaay jeeb iyo waxaa waaye talo ah dhammaan ayaan diyaar u nahay waan wadnaa ololahaas maalmahan waxaa wadeen dhalinyarada dabcan Soomaaliyeed ee qurbo joogta ah sidoo kale dalka ku sugan tahay ee UK Ingiriiska oo laha baraha bulshada iyo guud ahaanba ka wadeen oo ku aadanaa taageerida dawladda Soomaaliya oo lahaasi aad bilowdeen muxuu ku aaday hanad dabcan ololaha iskama yimaado laakiin waa inaad aragtaa dawlad muxuu ahaay wadadii saxda ku taagan wixii bulshada ay muxuu ahaay ka filaysay markaan aragnay in step loo qaaday tilaabta la qaado anagana marka waxaan isneeray bal waxa idinkaga aadan far kaligeed fool ma dhaqdee waxa idinkaga aadan dhalinyaran ahaan maxaa la dhahay bal isku soo baxa maskaxdii hala shiilo waxaan dawladda ku kordhi karna inaan muxuu ahaay la nimaano kadibna aan diyaar u noqon in dalkeena muxuu ahaay haddii aan tagi lahayn haddii aan banaanka muxuu ahaay talada aan ka dhiiba lahayn labadaba bulshadana diyaaray u tahay waa u bisashaan u malaynayo maanta in dalkeeni hore loo socodsiiyo dabcan dhalinyarada badankood waxay ku koreen qaaradda Yurub dalalka iminka adigu aad joogto Ingiriiska oo kale Norway badina qaarkood waxa ay ugu carareen Afrika iyo Soomaaliya amni xumo iminka waxa laga shaqeynayaa in amniga dib loo soo celiyo oo dhalinyaro kale oo Soomaaliyeed ayaa joogta hadda aan dadka la hadlayno furinta iyo hoodka kuwaas oo cadowga baxsanaya dhalinyarada Soomaaliyeed sidoo u arkaan dagaalka dib loogu soo celinayo amniga si looga guuleysto qawaariijta والله حقيقي قف كستو Soomaali dhiig Soomaaliyeed ku jiro xalaal ah kale waxaan leeyahay maanta waa taageersan yahay waxa ka socda Soomaaliya in dib bulshadii muxuu ahaa looga dulqaado muxuu culayskii sanado saarnay in dib ay u helaan maxaa la dhahayay dawladnimada waxa ay xaq u lahayn inay helaan ay ka mid tahay ceelashii in muxuu ahaa dadkii lagu taageero beerihiin muxuu ahaa dib oo lagu noqdo loo tabco sidoo kale waxbarashada iyo hooyooyinka dhalaanka meelahay ku dhali lahaayeen kulley dawladnimo waxay uga baahnaayeen in dib loo helo waa wax aad aan u soo dhaweynayno shakhsiga Soomaaliland aad ugu faraxsan muddo 10 sano ah waxaad ahayd gudoomiyaha ururka dhalinyarada ee Soomaaliyeed ee dalka Norway sidoo kale 10 qofood ayaa qayb ka ahaydeen dadka jaangooya siyaasadda xaafadda Soomaalida ku badan tahay Oslo ee dalka Norway waxa uu leedahay aqoon iyo khibrad xagga doorashooyinka markaad maqashay in dalkaada ka dhacayso doorasho qof cod dadku ay wax soo dooranayaan maxaa dareentay sidee looga baahan yahay qurbo joogto inay u taageeraan dawladda Soomaaliya si loo gaaro hiigsiga ah doorashadaasi qofkii codka ah walaalkay rashka aad u mahadsan tahay maalintan maqla dalkayna doorasho u jihaystay dawladda hore sidoo kale waa ayadana way ku dhawaaqday ma hirgelin marka waxaan arkayaa waxay tahay dawladdan markay timaadaba mashruucii ugu horeeyay ay soo bandhigtay miiska soo saartay wuxuu ahaa waddankan inuu qof iyo cod aadi doono oo dib dambe lagu noqonayn teendhadii marka waxay noqotay maadaama ay sanadkii koowaadba soo bandhigeen in wax laga dhabay kara ay tahay anagana markaas waan u dhaqaaqnay inaan talooyin bixino inaan isku nimaano wax kasta oo aan ku taageeri karno muxuu ahaay dawladnimadeena inaan sameyno waa wax lagu farxo diyaarna waan una inaan muxuu ahaay heegan waa ugu jirnaa sidii muxuu ahaay doorashadaas u dheelaad insha Allah maanta waxaan uga diriray inaan u kacnana waxay tahay maanta dalku wuxuu u jihaystay doorasho qof iyo cod ah shidaalkii la soo saaraya dib u dhiskii bilaabay amniga Muqdisho maxallaha maanta la simanba muxuu ahaay caasimada maanta ku noolahay London ayaa nagu kaliftay in dib loo noqono intii maanta ay odayaashii ay hagaajiyeen in anagana kasii damba qaadno haddii aan ku galana muxuu ahaay maansadii
waxay ahayd cirka waxaad ka dhowrtaan dhulku inuu ku xiran yahay war maloo dhigleeya dhowr roob la-aantii dharbaaxada ilaah inaa dhignay ma ogtihiin kuwa dhinaca ka hayga haddii aan dhadhamo helin kan dharkaaladnaashaha dhacdiid u jiifow adduunku waa dharaaray ma ogtahay dhacdada hayga inuu dhuxula daaciman mas-uulkii dhaqaalaha loogu dhiibay maatada ay dhaafshay ma ogtahay inuu xabag dhungal iyo dhiiro dhabaati uu cunay haddaanu isagu dhiman ubadkiisa dhaxal u ah dhiig sokeeye kii gala ma ogtahay dhibaatadii dhaawac inuu qabo dandheeraan uu leeyahay sumcad xumo ka dhigan tahay dhedigaabo weligii bakdin ay ugu dheertaa dhalintii wax baran lahayd dhulka u shaqayn lahayd qurbaa dhinac ilaa dhinac ayagu wax weyn dhimin jalal bay ka dhasheen kuwinagi dhulkii weli dhaldhalaalka beenta ah intay dhugashada eegaan bay ku haminayaan dhoof dhangadaha saxraaga iyo baddana ugu dhammaadaan dhagcastii daraad kala dhiista war lahaan jiray saramaad u dhugataan dhaqankii odayaashii hore dhidbeen oo adkeeyeen sidii loo dhadhaabi lahaa xaggeeda ma u dhaqaaqnaa dhagar qabe ma erinaa cudurka dhudhumihii dhaayaha ina wada tiray si wacan ma u dhakhtarinaa oo doorasho ma u dareernaa meelna kuma dhammaatee qabyaalada ma dhaafnaa dhibta ma u heshiinaa dhowrta ma iska celinaa dheefta aan wadaagnay hadal iyo dhammaantay soomaalay dhegaysto dharansho weerahaygoo murtida wardhuuxa dhisa wixii burburay raadiyo wixii dhumay dhacan wan adduunkiye dhan un aan karaacne dunida maanta waad aragtay waxaa laga maarmi rabaa waxa la yidhahdo muxuu ahaay shidaalkii loo isticmaali jira meel kasto gawaareed waxyaabahaas adduunku waxay u tilaabsada waxay tahay electric annagana maanta dowladdeena waxay ku dhaqaaqday shidaalkaas waxaan gobaabinaa in shidaalka si dhaqso ah looga faa'iidaysto intii aan dunida ay ka tagin marka waa kaas insha allah dabcanad ugu dambeyntii fariinta ugu dambeysa dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurbo joogta hamigooda ku aad horumarka dalka kuwa badan baa ku hamin dadka inay ku soo laabtaan marka dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool fariinta aad maanta gaarsiinayso maxay tahay waa runtaa dad badan aan muxuu ahaa dalkii kula noqdeen weli iska noqosho ma ahan keliya fakir ay kula noqdeen waxay kula noqdeen muxuu ahaay aragti cusub dalka inay kusoo kordhiyaan waxaan dalkeena hore u lahaynaa lagu soo kordhiyey aadaan muxuu ahaay u bogaadinaya dalkii waa nabad insha allah inta dhimanna muxuu ahaay haddaan rabbi u tuugno insha allah way noqonaysaa aadamaha sidiisaba wuxuu rabbi u sameeyey waxa la siiyey inay marka hore ka mahad celiyaan inta aynan ilaahay waxa ay rabaan ay ka codsan marka waxaan aad uga mahad celinaynaa waxay tahay dalkeena inuu ilaahay nabad nooga dhigay inta dhimana waxaa leenaha rabbo adaa nabad nooga dhigay inta dhimana ilaahay inuu dhamaystir kuwii waxaa